ninkii ku xanibnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Paris muddo 18 sano ah. Haddii ay muddada transitka ku tahay garoon diyaaradeed uu kula dheeraad waxaa dareemay daal iyo caajis badan, bal ka waran nin ku noolaa garoon diyaaradeed 18 sano. Sidoo kale haddii aad transit ku noqotay garoonka diyaaradaha ee magaalada Paris muddadii u dhaxaysay 1988 ilaa 2006, waxaa hubaal inaad aragtay ninkaan maanta qisadiisa ka sheekeynayno. wax walba oo nolosha uu helayay sida cunno, caafimaad, cadaysi, qubays, laakiin nasiib darradu waxay ahayd inuusan banaanka uusan uga bixi karin oo ku xaniban yahay garoonka. intaanan u gelin qisada ninkan oo faahfaahsan, haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir kana mid noqo asxaabta ku xiran kanaalka. Mehran Karim Nasri oo ku magac dheer Mudane Alfred ayaa asal ahaan ka soo jeeda wadanka Iran, wuxuuna 1943 ku dhashay magaalada Tehran ee caasimadda wadanka Iran. markii uu soo danjirsaday wuxuu waxbarashada heer jaamacadeed u aaday wadanka Ingiriiska. markii uu soo dhameystay waxbarashadiisii wuxuu dib ugu soo noqday wadanka, wuxuuna ka qayb galay barnaamij looga soo horjeedo Maxamed Raasa Shah iyadoo loo tixgelinayo aragtidiisa siyaasadeed. iyo barnaamij uu ka qayb galay 1977 ayaa lagala noqday sharcigii, waxaana musaafiriye wadanka. wixii xilliga ka dambeeyay waxa uu noqday wadan la'aan. kadib waxa uu raadiyay inuu dhalasho ka helo wadanka Ingiriiska maadaama uu ku andacoonayay inay hooyadii ay tahay British, laakiin waa loo diiday dhalasho. 1981 ayaa waxaa qaxooti ahaan u aqbalay wadanka Belgiumka, waxaana la siiyay aqoonsi qaxootinimo. sanado dhowr ah oo ku noolaa Belgiumka wuxuu go'aansaday in 1986 uu safro wadanka Ingiriiska isagoo sii maraya Faransiiska, gaar ahaan magaalada Paris. intii uu ku sugnaa wadanka ayaa waxaa tareen dhexdii lagaga xaday boorsadiisii oo ay ugu jireen dukumentiyadii iyo waraaqadihii aqoonsiga qaxootinimo. 1988 ayuu u safray wadanka Ingiriiska isagoo rajeynayay inay mas'uuliyiinta wadankaasi dhageysan doonaan cabashadiisa, laakiin markii uu ka degay gegida diyaaradaha Heathrow Airport waxaa dib u soo celiyay kuwa qaabilsan hubinta baasaboorada, waxaana dib loogu soo celiyay garoonka diyaaradaha Charles de Gaulle ee magaalada Paris. isla markiiba waxaa xiray booliska Faransiiska. baaritaan kadib waxay ogaadeen in ninkan asalkiisu ku soo galay wadanka si sharci ah, wayna iska fasaxeen. waa su'aal halkii buu aadayaa nin aan lahayn wadan hooyo dib ugu noqdo, mana uu ku laaban karo wadankii qaxootiga ku ahaa ee Belgiumka maadaama uu sheegay in laga xaday warqadiisa aqoonsiga. waxay danta ku qasabtay in hooy ka dhigta garoonka diyaaradaha dhexdiisa. Nasri wuxuu waqtigiisa ku qaatay miisii kursi yaala Terminal 1 iyadoo ag taala boorsadiisii. maalmihii ayaa isu bedelay asbuucyo, asbuucyada ayaa isu rogay sanado. waxa uu hel u ahaa akhrinta iyo barashada maadada dhaqaalaha. wuxuu si joogto ah wax uga cuni jiray maqaayadda McDonald. sidii wax waalan buu keligii kursi fadhiyaa, halkaaba hooy harsiima u ah. sheekadiisa ayaa noqotay mid caalami ah. wariyaal badan ayaa yimid garoonka bal siday warbixin uga sameeyaan xaaladiisa. 2004 shirkad filimada soo saarta ayaa ka codsatay inay filim ka sameeyaan qisadiisa iyagoo siiyay qarash. filimka ayaa magaciisu ahaa Terminal Man. qareen Faransiis ayaa u diirnaxay una damqaday Nasri, wuxuuna isku dayay inuu u doodo kana dhaadhiciyo dowladda Belgiumka inay mar kale dib u siiso warqadihiisa aqoonsiga. haddii uu Nasri isagu codsan lahaa, dhibka wuxuu ka taagan yahay uma u safri karo Belgiumka si uu helo aqoonsi cusub maadaama uusan haysan aqoonsi uu ku safro. sidoo kale iyana waxaa mushkilad noqotay sharciga u degsan dalka ee dhanka qaxootiga ayaa qeexaya in qaxooti markii la aqbalay kadib ka tegay wadanka inaanu dib ugu soo noqon karin. ugu dambeyntii 1999 dowladda Belgiumka ayaa ogolaatay inay u soo dirto warqadihiisa aqoonsiga qaab email ah, laakiin Nasri kuma uusan faraxsanayn. wuxuuna ka shakisanaa hubaasha arrintan maadaama warqadihii aqoonsiga ee horey uga lumay ay ku qorneed Sir Alfred, aqoonsigan cusubna ay ku qoran tahay magaciisa oo dhammaystiran Mehran Karim Nasri, laguna suntay dhalashadiisa saxda ah ee Iiraani. arrintii ayaa fajac la noqotay qareenkii u doodayay 10 sano una soo dhiciyay inuu dib u helo aqoonsigiisa. Nasrina uu si fudud isaga diiday. ficilkan uu sameeyay Nasri ayaa qareenkii aad uga carooday, waxaana faraha kala baxay xaaladda ninkan. Nasri ayaa isna ku sii nagaaday Terminal 1 sanado kale. inaad ku noolaato sanado badan kigi diyaaradeed waxay keeni kartaa dhibaato nafsiyadeed. 2003 mar qareenkii u doodayay laga wareystay xaaladda Nasri waxa uu ku tilmaamay inuu waalan yahay, waayo wuxuu yiri dhowr tilaabo oo fudud sameeyntooda ayuu ugu xaniban yahay garoonka. wuxuuna sheegay haddii warqadaha wax ka qaldan yihiin in dib loo sixi karo oo magacii hore kan la sahleyshin karo. 2006 waxaa Nasri la dhigay isbitaal xaalad caafimaad oo aan la garan awgeed, waana markii ugu horeysay uu banaanka uga baxo garoonka muddo 18 sano ah. waxaana isbitaalka laga soo saaray 2007 kadib waxaa deganaansho siisay dowladda Faransiiska, waxaana ku noolaa guri ku agyaala garoonka diyaaradaha ee magaalada Paris. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. wabillahi tawfiiq.